Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawada meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogto kusoo dhowo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu tooshka ku qabanaynaa warbixin lagu daabacay joornaal ka soo baxa wadanka Israel oo ciwaan looga dhigay Somaliland iyo Israel walaalo waqti fog kala lumay. Haddaba intaanan daawada muuqaalka u gudagelin haddii ay tahay markii koowaad ee aad channelkayga soo booqato fadlan subscribe si aad nagula soo biir gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela muuqaalada aan halkan soo gelino. haddii aad video ka heshayna subscribe saar. Magacaygu waa Sidiiq Axmed Muuse, halkana waa Capson Media. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaal cusub. Waxa warbixinta lagu yiri Somaliland iyo Israel wax weyn bay wadaagaan. Israel waxay wajahaysaa cadaawado badan oo aan aqoonsanayn ama inay xaq u leeyihiin inay iyagu xukumaan. Somaliland sidoo kale wadamada badankoodii ma aqoonsana. taariikhdana waxay wadaagaan Ingiriiska. Boqortooyadii Ingiriisku waxay jabisay boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxay qabsatay Falastiin, kadibna waxay heshiis la gashay dadka Yuhuudda ah ee Israel. Sidoo kale hogaamiyaasha qabaa'ilada Somaliland waxay Ingiriisku u ogolaaday inay difaac ku yeeshaan dhulka noqonaya British Somaliland, kadibna xornimada qaatay 26 Juun 1960. Israel waxay ugu horeysay 34 dal oo ay ku jirto Mareykanku inay aqoonsadaan Somaliland. Somaliland waxay ku biirtay koonfurta Soomaaliya, midowgaas oo socday ilaa 1991, kaas oo galay go'doon siyaasadeed. Wadankiina uu lugaha la galay dagaalo sokeeye iyo xagjirnimo diineed. Dadka Somaliland ku nool waxa lagu qiyaasaa 4 milyan. Somaliland waxay wajahaysaa mucaarad adag oo kaga imanaya dhinaca Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan. Israel waxa loo arkaa inay cadow u tahay dunida Carabta oo lagu qiyaaso dad gaadhaya 400 milyan iyo awood dhaqaale oo gaadhaysa 2.5 trilyan sanadkiiba. Somaliland iyo Israel waxay mucaaradad weyn kala kulmayaan diidmada guud ee 22 wadan ee ururka Jaamacadda Carabta. Israel waa mid ka mid ah wadamada horumaray ee Bariga Dhexe iyo adduunka, iyaga oo dakhliga qofkiiba sanadkii soo gala uu yahay $42,000 iyo warshado soo koraya oo casriyeysan. Tiknoolajiyadda Israel iyo shirkadaheedu waa hormuudka cilmi baadhis horumarsan iyo horumarka adduunka. Inkastoo Israel ay ku taalo dhul cidla oo leh awood yar oo dhinaca beeraha ah, haddana waxay gaadhay 90% sugnaanta cuntada. Somaliland oo ayna aqoon u lahayn wadamada badankoodu iyo maalgashi shisheeye oo xadidan, waxa ay leedahay kobcinta dhaqaalaha qaybta gaarka loo leeyahay, isgaarsiin horumarsan, dhaqaalaha digitalka ah, nabad iyo xasilooni iyo geedi socod dimuqraadi ah oo naadir ku ah qaaradda Afrika. Waa dimuqraadiyadda kaliya ee Muslimka ee Geeska Afrika, waxaana ilaalisaa cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee xiriirka la leh quwadaha reer galbeedka iyo wadamada Afrika. Waxa ay leedahay kheyraad fara badan sida saliidda iyo gaaska. Waxay ku taalaa goob istiraatiiji ah. Waxay ku darsatay awoodeeda juqraafi ahaaneed. Maadaama Israel ay xoojiso xiriirka ay la leedahay dunida Carbeed, Afrika iyo Somaliland, waxay Somaliland noqon kartaa saaxiib dhow oo fulin kara himilada istiraatiijiyadeed ee Israel oo ah xulafada muslimiinta ee daacadda u ah ee gobolka Badda Cas. Somaliland waxay u baahan tahay wehel xoogan, taas oo ay yar tahay inaanu lumino sii wadida taageerada adag ee aanu ka hayno magaalada Hargeysa iyo caasimaddeeda. Dambiga Ruushku leeyahay ayaa ah inuu ka dhisto saldhig military Somaliland. Inkastoo aanay suurtagal ahayn horumar togan, haddana waxay halis gelinaysaa xiriirka dhow ee ay la leedahay Washington iyo Midowga Yurub. Sidaas daraaddeed, Israel waxay u taagan tahay inay tahay qayb muhiim ah oo ka maqan Somaliland. Dowladda Israel waxay soo bandhigtay xiisaha ay u qabto soo celinta aqoonsiga jaaliyadeed ee ay siisay Somaliland 1960, iyadoo tixgelinaysa doorkeeda juqraafi ahaaneed ee Badda Cas iyo Geeska Afrika. Sida laga soo xigtay ilo maxalli ah oo ka mid yihiin Golis News, afhayeenkii wasaaradda arrimaha dibadda ee Israel Yigal Palmor ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay aqoonsato Somaliland mar labaad. Dareenka noocaas oo lagu muujiyay Somaliland halkaasoo dadka saameynta ku leh ay ka mid yihiin aqoon-yahanada, ganacsatada, ururada bulshada rayidka ah iyo mas'uuliyiinta dowladda ay si weyn u taageersan yihiin xiriirka dhow ay la yeeshaan Tel Aviv. Dhaqanka diiran ee reer Bani Israel ma aha wax cusub. Madaxweynihii ugu horeeyay ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ayaa waxa uu taageero weydiistay Israel. Isagoo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu warqad u diray ra'iisul wasaarihii hore ee Israel Yitzhak Rabin 1995
Marka la eego meeqaamka labada dowladood iyo halganka ay ku jiraan dowladnimada iyo ictiraaf raadinta, waxaa la joogaa waqtigii Israa'iil iyo Somaliland ay dib u soo cusboonaysiin lahaayeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyo iskaashiga labada dhinac. Haddaba si aad u aragto daawade fikirkaaga warbixinta lagu daabacay jaraa'idka Jerusalem Post ee ka soo baxa Israa'iil, noogu reeb qaybta hoose ee kommentiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.